maaha inta lacag aad samayso ee waa inta save garaysato maaha inta save garaysato ee waa inta maal gashato maanta waxaan kala hadlayaa faa'iidooyinka uu leeyahay budgetinka iyo hadaa sameeynin dhibaatooyinkaaga imaanayo walaal soo dhaw magacayga waxa la yiraahdaa Tahir halka waxaan kaga hadlaynaa real estate investment fix and flip Airbnb arbitrage ama wax loo yaqaan taxi loopholes budgetinka maanta ka hadlayno iyo waxaan ka hadli doonaa ka hadalnaa side hustle lacag online ka saago sameyn lahayd insha Allah soo dhaw na soo flow garay videoda ka badan 2 daqiiqo waxaan soo dhigaa YouTube-kayga aad halkaas soo subscribe garay insha Allah wuu ku bilaabayaa faa'iidooyinka ilayhiin baan ku sheegay hadda budgeting samaysto marka koowaad waa wax loo yaqaan financial control waxaad controleysaa lacagtaada dakhliga ku soo galo ayaa controleysaa adiga ayaa maamulaya tan labaad waxay tahay waxa achieve garanaysaa wax loo yaqaan goal achievement waaye waxaad sameynaysaa hadda lacag save garaysato lacagtii meeshii hadafkii aad rabtay waa gaaraysaa tan saddexaad halka saving growth wax loo yaqaan ayaa jira waxa ku kobcayo savingkaadi ayaa kor u kacayo taasoo ku ogolanayso hadaa rabto inaad investment ku samaysato ama hadaa rabto for example real estate investor ahay hadaa rabto inaad real estate inaad iibsato kale taas ayay ku ogolanaysaa tan kale waxay ku noqonaysaa inaad ogaato wax lacagta ka baxayso iyo lacagta ku soo galayso inaad ogaato waxa kale ku ogolanaysaa wax loo yaqaan debt management waliba dadka Mareykanka hadaa ku noosho kale oo deymo badan lagu leeyahay hadii aad lacagtaada budgeting samayso aad ogtahay wixii ku soo galo waxa ka baxay oo waas aad ogtahay haddana waxa ku ogolanaysaa inaad maamusho hadii deyn lagu leeyahay deyntaada saad u bixin lahayd tan kale waxay ku ogolanaysaa wax loo yaqaan improve decision making oo go'aanka aad qaadanayso maanta aad leedahay inaad rabto inaad moolka aad ku bixiso $100 $200 ama $100 ay ku qorshaysan tahay qorshahaada ay ku jirto wax dhib ah hadhow kama qoomeenaysid lacagtan aad spend garaysay sababtoo lacag ku qorshaysanaya tahay tan kale waxay noqonaysaa low stress waaye stresska ayaa ka yaraanayo maadaama wixii aad qorsho ku socoto aad wixii ay ku hagaagsan yihiin haddii qorsho aad ku soconin wixii kuma hagaagayaan laakiin qasaarooyinka leeyihiin baan ku sheegayaa haddaad budgeting sameeynin number 1 waxaad lacagtaada horta meel ku baxdo ma garanaysid oo waad iska isticmaalaysaa meel aad ma garanaysid tan kale waxay noqonaysaa lacag ma save garanaysid ha sheegin in lacagna save garayso dadka qaar markaas waxaad arkaysaa dad online waxaad arkaysaa investment property iibsanayo hawlo kala sameynayo adiga maxaa sababta dadka kaliya lacagtooda kama lacag badnay kaliya waxay yaqaanaan lacagtooda sida loo manage gareeyo waa inta kaliya so tan kale waxay noqonaysaa mustaqbalka kale mustaqbalkaadii ama mustaqbalka caruurtaadii ayaa baabiinaysa maadaama adiga aan lahayn qorshe ku samaysnaan lacagtii intii aad samaysan aad baabiisay caruurtaadii mustaqbal fiican ma yeelanayaan hadhow ay taasoo u keenayso in wixii aad caruurtaada u iibin lahayd aad u iibin karin aad arkayso qof kale oo dariska sameynayo taasoo aad hadhow wax loo yaqaan envy sameynaysa ama ina xaasidaad isku dayayso sababtoo wixii adiga dhibaatadii adiga ayaa keenay taasoo kale waxay ku keenaysaa wax loo yaqaan financial goals waliga ma gaaraysid hankii aad rabtay ama dhaqaale ahaan meesha qaybta aad rabtay inaad gaarto ma gaaraysid maadaama adigii aad wixii ku qorshaysnaa aad samaynin so haddana waxay noqonaysaa tan ugu dambaysa waa go'aankii aad gaari lahayd go'aanka aad gaarayso waa poor financial decision la yiraahdaa waad iska baxaysaa kaarka waa qaadanaysaa waa soo isticmaalaysaa waxba qorshe kuma samaysno moolka iska aadaysaa waa soo shop garaysanaysaa wax qorshe kuma samaysno waa sababta lacagtaada meel ku baxdo ma garanaysid meel ka soo gashay ma garanaysid soo isku dhamaanaysaa soo dhibaatadan dad badan oo Soomaaliya haysta ayaan arkay kaliya inay ahayn balaga yaaba aniga kula hadlayo dhibaatada way haysan jirtay 5 sano 4 sano ka hor waxa sameyn jiray waa iska bixi jiray moolka iska aadi jiray waxa doona sameyn jiray ilaa buug far badan aan ogaaday kaliya ma aha qof bal aadan ka lacag badan ma jiro ee dadku waxay garanayaan lacagtooda sida loo maamulo insha Allah hadaa rabto sida budgeting loo sameeyo goal setting si loo sameeyo ama hadaa barato real estate investment hawlaha dadka ay baranayaan oo kale dhalinyarada fix and flip Airbnb arbitrage website-kayga ayaa aadi kartaa saxan investor dhalinyaro far badan ayaa hawlaha xirfadaha ka bartaa insha Allah soo dhaw insha Allah hadii aan nagu cusub tahayna insha Allah YouTube-kayga aad soo subscribe garee halkan naga soo follow garee insha Allah waa islaamiin badan khayr badan baan ku rajaynayaa